ujeedada loo tababaray waxay ahayd in gabadha Soomaaliyeed oo la kufsado ama dalka Soomaaliya magan ku ah oo dib loo geystay inay hesho gabar kale oo u sheega karta dibka loo geystay caruurta dayacan ama lagu xadgudba maartay iyaga xaq dhowrkooda inay difaacaan xuquuqdooda inay difaacaan maartay ayaa tababarkooda u ahay waxaa laga furi doonaa saldhigyada booliiska degmooyinka dhammaan dalkana waa gaarsiin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo tababarkooda rabaa in sare loo qaado midkaan ma aha midkii u horeeyay oo muxuu ahaa tababarka afraad la furo ahay marka 40kan xubnood waxaa loo qaybi doonaa gobolka Banaadir ayay ahaayeen sidoo kale midkaan mid lamid wuxuu ka furan yahay Baydhabo mid kale wuxuu ka furan yahay Beledweyne Kismaayo marka ciidankaas ujeedada loo furay waxa waaye inay ilaaliyaan ay difaac u noqdaan haweenka lagu xadgudbo kufsiga loo geysto iyo waxyaabaha xadgudubka oo dhibaatada jirdilka iyo waxyaabaha lagu sameeyna People who are doing the concert, if you would come on the stage and I would like to. Gender-based violence cuts across. You could hear what I was talking about, not only even in the families, but even in our places of work. These kind of violences are there. But people don't take them seriously. I mentioned it sometime. They are looked at very, very minor offenses. And yet they are the most serious offenses that result into serious crimes, like it can result into murder. The aim for this course actually was for us to open gender desks at each and every police station. So now that we have 40 participants who actually are experts now, hopefully, yes. They are aware what SGBV course and how the report and investigation is going to be. We can say the next step would be to actually do this gender desk. It will be very soon, I think about a week or two, that we'll actually we'll be taking this gender desk to each and every police station in Banaadir.